ummadda Soomaaliyeed ee ugu jirtay xoreynta dalka ee gumaysiga la diriraysay raggii wuxuu ka mid ahaa qaybta lixaad ka soo qaatay horseedkana ka mid ahaayo howshaas ragga hormuudka u ahaa ayuu ka mid ahaa maxamed abshir wuxuu noqday ciidanka booliiska markii la aasaasay kadibna wuxuu noqday generaalkii ugu horeeyey ee Soomaali ay yeelato ayuu ahaa kadib wuxuu noqday taliyihii ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu ahaa nin wax badan u qabtay ciidanka uu hogaaminayay wuxuu ahaa nin wax badan u qabtay Soomaaliya aasaartii uu ka tagay maanta Soomaali baa weli ka faa'iideysanaysa anigu waan aqaanay waxaan ku aqaanay nin aad u sabir badan in allaha maca asaabiriin sabirkii uu lahaa ilaahay ka ajar siiyo gartay ninkaa wuxuu ahaa nin cadaaladda jecel gartay adeer waxaan rajaynayaa inaan isku soo noqonno kadib marka hadda waxaa la gaaray